له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن مركا كوبات الله تبارك وتعالى أيانكم أهدينينا نغدقي مسلمين نودورتينا نقنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمد إلهي أبو ري أمد وفضل البضان انت اسكدب ولا ليال إن الله سبحانه وتعالى ما دام ونا أبو ري الدنيا ونا كيني وحينا أبو رتي إن نعبدنه وإلهي سبحانه وتعالى انت أنولنا هاي الدنيا جوجنه إسقى إنه كبقنه مركا كوباد وعدي وانا وحوه الرأي إلهي سبحانه وتعالى إلا كبقه وليس حسوسيه آياتك أين آخرين يا حديثك الله تبارك وتعالى إن بدن قرآنك يسوح كل يهي دادك مؤمنين تو إلهي كبقيتان دبعه الله إذن أبو ري وهدمانين إلا إذنكو هقانسان ومسلمين مويانه سيدوك الله تبارك وتعالى وحلي الدادو دمانتين إلهي سبحانه وتعالى كبقى الله إذن كأبو ريحان نفع آدم نفتاس آدم وقدم إلهي سبحانه وتعالى وكفديي رق بدن iyo dumar badan allahaas ka baqa oo ladin celin doono ilaahayna hortiisa ladin istaajin doono allah tabaaraka wa taala ayad kale wuxuu ku leeyahay watazawadu wardada sahay iyo jiscin qaata fa inna khayra zadi taqwa sahay iyo jiscin la qaato waxa ugu khayr badan alla ka cabsi marka naftayda iyo naftiida waxaan ku baraarujinayaa allah subhanahu wa taala inaynu ka baqno baqdinta la sheegayana waxa weeye amarkii ilaahay oo la yimaado iyo ilaahay wuxuu naga reebay oo ka harno nabiga sallallahu alayhi wasallam isagana xadiis wuxuu ku yiri ittaqullaha haythuma kunt ilaahay ka baq meel kasta joogto iyo mar kasta aad joogto markaad cidla tahay iyo markaad dadka la joogto ilaahay ka baq wixii xumaato ka dhacdana wanaag ka dabagee dadkana akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan kula dhaqan waanada iyo wacdiga aynu jeedinayno dhamaanteen ayay maaragtay noo tahay dawo qalbigeen ayay u taiftiin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wadakir fa inna dhikra tanfacu almu'miniin waanadu waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta ah oo qofka hadduusan mu'min ahayn waanadu waxba uma tarayso mar haddaad aragto marka qalbigaaga oo waanada iyo wacdiga aysan saamaynaynin iimaankaaga dacfi iyo waxa ku jira taagdarri marka waanada iyo wacdiga dhammaanteen ayay dan inoo tahay insha allahu tacaala waa inaynu isdhegaysano intaas kadib meeshan aynu fadhino waa xaflatu zifaaf ama xaflad aqalgeyn aroos iyo maaragtay xaflad iyo mashxarad iyo wanaag iyo farxad baynu isugu nimid in badan waxaad maqlayseen dumar badan oo qaylinaya oo sacabtumaya sharciga wuxuu inoo baneeyey iyo wuxuu inoo banayn inta way jiraan arooska markuu bilaabanayo aasaaska ugu horeeya marka la suubinayo waxa laga cabiray sharcigeena meesha laga bilaabayo oo inoo sheegay meesha reerka sida loo dhaqaayana oo inoo tilmaamay intaba waxa laga bilaabay gabadha markii iyo zawjka ninka iyo naagta ama gabadha ay wiilka iyo gabadhu ay isguursanayaan sida ay isku dooranayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay gabadha waxa loo guursadaa buu yiri afar shay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo guursadaa inay qurux leedahay inay dad wanaagsan ka dhalatay inay maaragtay maal iyo xoolo leedahay iyo inay diin leedahay markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fadfar bidaati diini taribad yadak ku dadaal oo ku liibaan midda ugu dambayso oo diinta midda leh haddii kala gacmahaaga ayaa boorka ku dhacay yani waad khasaaraysaa wey halka waxaad garan kartaa marka waxa la isku guursanaya ugu horeeya inay tahay diin iyo dabci iyo wanaag in la raadiyo akhlaaq wanaag sidoo kale النبي صلى الله عليه وسلم وحول له حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذي ماذا قف دينتي سي أخلاق دينا أدو بوكتان أخلاق دي سي دينتي سي أدو بوكتان أقوريا هدا إذن أقورين فتنة فساد بعدعايا marka koobaad aasaaska koobaad ee laga cabirayo ama halbeega lagu dhisay guriga
waa diinta iyo akhlaaqda iyo dabciga in laga fiiriyo usrada wanaaggeeda. kadibna gabadhii iyo zawjkii zawjadii ama gabadhii wiilkii markay heshiiyaan oo dabcigooda iyagu iskeeno waalidkii loo gudbo oo si wanaagsan gabadhii loo doono oo ehelkeedii la weydiiyo. li'anna gabar aysan weligeedii bixin ama la meher xaday ama la masaafaystay ama la qudba siraystay oo weligii uusan ka warqabin nikaaxa nikaax saxiixa maahan. oo nebi sal ly slam wuxuu leey laa nikaaxa ilaa yacni nikaax ma jiro ilaa weli iyo shaahidi markhaati ilaa ila mooyaane. markaas kadibna usradii labadii reer ay xidhiiraan gabadhiina sida iyada lagu guuriyo. waxaa la soo gaaray marka iyada zifaafkii iyo aqalgeynta siday ku imaanayso oo la ogolyahay gabdhaha waxaa loo ogolyahay inay ciyaaraan gurbaan garaacaan ay maaragtay wax tiriyaan, laakiin waa inay keligood yihiin oo aysan rag ku dhex jirin. habeenkaas aqalgalka ay tahay ee guriga la keenayo gabadha la keenayo guriga habeenka ayada waa habeen uga duwan maalmaha kale wiilkii gabadha labadaba, li'anna waa habeen farxadeed oo maaragtay mustaqbal reer ayaa meesha ayada ka askumay oo ka bilowday. waxaa la rabaa marka sida sharciga uu yahay in la maro oo aqalgeyntii markay sidaa u dhacdo sida dadka qaarkii ay suubiyaan ciyaadan billaah usradaas iyadaa cusub ama reerkaa cusub aan muusig iyo heeso iyo waxyaalo sharcigu soo galayn ma bannaana in la suubiyo sida dadka qaarkiis ay suubiyaan. marka ayadaa haddii sidaa la yeelo gurigii dab baa lagu dhajiyey, gurigaasna dab iyo maaragtay halaag iyo hoog ayuu maaragtay ku abuurmayaa iyo ilmo maaragtay waalidkood caasi ku noqda inuu meesha ka yimaado. laakiin gurigii sida sharciga ogol yahay lagu bilaabay laguna dhammaystiray ilaa aqalgeyntii ilaa iyo guriga dhaqankiisa wuxuu noqonayaa guriga isagaa guri qabow oo ilmo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rajo fiican laga qabo inay anfacaan waalidkooda ummadda muslimiinta ahaba inay meesha ka yimaadaan. markii marka zawaaj guurka sidaa u dhaco oo zawjkii zawjadii guriga isugu yimaadaan habeenkaa ugu horeeya nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu sunneeyey in zawjkiiyo zawjadii gabadhiiyo wiilkii guriga markay isugu yimaadaan ay maaragtay 2 ragcoo sunnaa tukadaan, inuu ninka tujiyo gabadha 2 ragco oo sunno ah oo shukri oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama reer cusub meeshii uu ka yimid la tukado. sidoo kale uu zawjku ama ninku ku ducaysto ducada nebiga sala allahu calay wasalam uu yidhi ilaahu waxaan ku weydiisanayaa gabadhan khayrkeeda, af soomaali haddaan ku sheegno ilaahu waxaan ku weydiisanayaa gabadhan khayrkeeda iyo khayrkii aad ku abuurtay, waxaan kaa maangelayaa sharteeda ee wixii shar aad ku abuurtay. inuu sidaa yidhaahdo waxaa sunnaha inuu gabadha foodeeda qabto oo yacni sidaasoo kale uu u taabto 2 ragcan ay tukadaan, sidaasna ay ku ducaystaan labadii qof. intaas kadib markii la casheeyo oo maaragtay la sheekaysto in adkaartii haddana la akhristo oo nebiga sala alla alay slam wuxuu yidhi zawjku waa inuu shaydaanka iska naaro oo yidhaahdo ilaahu waxaan kaa maangelaynaa shaydaan iyo wixii la mida. halkaa iyada ah ilmihii ka askuma waxay noqon doonaan ilmo wanaagsan oo aan waalidkiis indhaha faraha ka gelin oo baari oo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hagaajiyo. li'anna qofka markuu dhinto waxyaalaha ugu muhiimsan oo ka haraya waxaa ka mida nebigu sheegay oo waladun saalixun yadcuu lahu, wiil saalixa ilmo saalixa gabadhii wiil waxay noqotaba oo ka dambeeya oo ilaahay u soo baryo u soo duceeya. ilmihii muxuu saalix ku noqonayaa? saalix wuxuu ku noqonayaa markii hooyo fiicanna loo dooro si fiicanna gurigii diinta loogu dhaqo ayuu noqonayaa ilmo saalix oo wanaagsan. tarbiyadaas ayuu ku kala indhaqaadayaa labadii waalid oo maaragtay ismaqlaya oo is-adeecaya oo is-xushmadaynaya. inta markaan ka soo gudubno xuquuqda meeshaan ka ratimaysa markii gabadha gurigii aabbaheed ama reerkooda ka soo wareegtay waxaa mas-uul ka ah zawjkii ay ku soo wareegtay. hadday ku soo wareegtay mas-uuliyadda isaa iskale xuquuq bay labadooda isku leeyihiin, 2 xaq bay isku leeyihiin oo weyn. zawjkana gabadha xuquuq waa weyn buu ku leeyahay, zawjada ama gabadhuna ninkeeda xuquuq bay ku leedahay. gabadha haddaan ku hormarno xuquuqda ninkeeda ay ku leedahay waa in meherkeedii la siiyo, waa in biil ku filan intii awoodeeda la siiyo, waa in maaragtay sidoo kale ay sukna iyo dhar iyo guri u habboon inay hesho laayiq u ah. marka ayadaa gabadhii waxaa laga doonaya iyadana sidoo kale inay noqoto gabadh zawjkeeda ka dambaysa oo adeecda oo maaragtay nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi gabadhu hadday 5teeda salaad tukato ninkeedana adeecdo farjigeedana ay xifdiso
waxaa la dhahayaa jannada albaabkaa doonta ka gal. marka jannadeeda waxay ku xiran tahay zawjkeeda inay adeecdo. waad garanaysaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam as-saadiqu al-masduuq, runlow hadalkiisa loo rumeeyo oo run ku hadla ayuu ahaa. wuxuu yidhi haddaan amrayo qof inuu u sujuudo, haweenayda ayaan dhihi lahaa ninkeeda ha u sujuudo xuquuqda ay ku leedahay weynankiisa, laakiin ma bannaana axad kale inuu u sujuudo. sujuudda ilaah baa iska leh oo waa cibaado. marka xuquuqda waad garan kartaa gabadha muslimadda ninkeeda uu ku leeyahay sida ay u weyn tahay. waa inay adeecdo zawjkeeda, waa inay ka dambayso, waa inay ixtiraamto. sidoo kale waa inaysan gabadha xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid ah inaysan sirta ninkeeda aysan faafin u xifdiso, hadduu joogay hadduu maqan yahay intaba. oo nebi sal ly slam wuxuu leeyahay adduunyada yacni sacaadada ama liibaanta markuu ka hadlaya wuxuu yidhi 4 shay ayaa liibaanta adduunyada lagu gaaraa. yacni haween saalixada oo wanaagsan oo haddaad fiiriso oo aad aragtana ku farax gelinaysa, haddaad ka maqan tahayna waxaagii maxaa la yidhahdaa wixii adigo aad lahayd kuu xifdinaysa sirtaadii iyo maalkaagii iyo xoolahaagii. hadday durriyaddii ilaalinaysa gabadha ayadaa almar'atu saalixa lambarkoobuu ka dhigay. sidoo kale wuxuu ka dhigay waxyaalaha liibaanta adduunyada lagu gaaro albayt alwaasic, guri waasica oo haddaan ciriiri ahayn isagana wuxuu ka mid yahay liibaantu ka mid yahay adduunyada waxyaalaha yacni faa'iidada leh. almarkab alwaasic iyo sidoo kale gaadiid fiican iyadana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha fiican. waxaa kaloo liibaanta ka mid yahay aljaar alsaalix, daris saalixa oo wanaagsan haddaad la daristana iyadana liibaantay ka mid tahay. marka nebiga markuu liibaanta adduunyada tilmaamayay wuxuu 4 shay ka bilaabay almar'atu asaalixa, gabadha wanaagsan. oo saalix muxuu yahay? waa qofka xaqii ilaahay ku lahaana guta, xaqii uu ku lahaa zawjkeedana guta. sidaas weeye. waxaa ka mid a xuquuqda gabadha lagu leeyahay inaysan guriga u ogolaanin ama gurigeeda aysan maaragtay isha gurigii zawjkeeda cid isaga uu nacayo inaysan keenin. nebiga sala allahu alay slam baa yidhi annaga maanaan dhihin yacni cid isaga uusan raalli ka ahayn inaysan gabadha guriga soo gelin. inay gabadhu noqoto gabadha gurigeeda ku eg oo gurigeeda joogta waa kadaalika xuquuqda lagu leeyahay ayay ka mid tahay. marka mar'a saalixa nebi sal ly slam markuu tilmaamaya wuxuu yidhi adduunyadu waa mataac, waa raaxo, wa khayru mataaciha imra'atun saalixa. adduunyada raaxadeeda waxa ugu fiican haweenay wanaagsan. marka innaga haweenkeenna dhammaantood bay arrintan khusaysaa, qof gooniya ma khusaysee haween yacni gabar kasta oo zawjadoo la qabo oo mas-uula iyo midii zawjo noqon doontaba waa inay noqoto gabar saalixada oo ilaahay xaqiisa gudata, zawjkeeda xaqiisiina gudata. taas maxay ku imaan kartaa markii sharciga la ilaaliyo, qofku diintu ku dhaqmo, salaadihii ku dadaalo, gurigu noqdo guri nuur iyo iftiin ka baxaayo. guriga waa in laga ilaaliyo waxyaalaha laga ilaalinayo waxaa ka mid a muusig iyo waxyaalo la mida iyo heeso iyo wuxuuna ilaahay raalli ka ahayn waa inaana guriga lagu shidin. guriga waa inuu noqdo guri qur'aan ka shidan yahay, axaadiista nebiga ka shidan tahay, yacni wax ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay waa inay ka yimaadaan. waxaa kaloo jira oo inta badan dhacda waxyaalaha zawjkii zawjada yacni ay ku raagaan ama liibaanta qoyska keena waxaa ka mid a labada qof inay is-aaminaan oo isxaq dhowraan oo qofka kale uu ixtiraamo uu ilaaliyo. sidoo kale hadduu khilaaf yimaado ama ay dhacdo shaydaan baa jira oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ku xidhiiriyey, waa in labadii qof hawshooda iyaga ay dhammaystaan oo aysan cid kale ogaanin. waxyaalaha laga ilaalinayo guriga waxaa ka mid a dadka fasahaadka wada oo laga yaabo usrada inay col la yihiin ama mase aan ogolayn gabadha muslimadda ee maaragtay wanaagga iyo guurka iyo reerkaas, ama ninka laftiisa aan u ogolayn wanaagga iyo guurkaas oo maaragtay fasahaad bayna al-usar ku suubinaysa. nebiga sal ly slam wuxuu yidhi waa malcuun, waa la lacnaday calaa lisaani nebiy sal ly slam ayaa lagu lacnaday qofkii zawj iyo zawjadiisa kala fitneeya oo isku dira oo hadal u kala sheega. ilaahayna qur-aankiisa subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi in jaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. war dadka mu'miniintow hadduu qof faasiq idin yimaado oo hadal idinla yimaado, gabadhaadii wax lagaaga sheego, ninkii wax loo sheego ama gabadhii wax loo sheego, hadalkaasna uu yahay hadal maaragtay waxaa la rabaa in la caddeeyo. fatabayanuu caddaysta intaada la ordino shaydaan uusan kugu xambaarin. waa inaad tiraa waxaan masaxba aad baartid oo aad ka gungaadhid. laakiin labadii qof oo maaragtay zawjkii zawjadii waxay noqonayaan marka iyada hadday labada isku kalsoonaadaan
inaan inaba ha yaraatee dhexdooda uusan ka shaqayn saddexeeya saa darteed marka usradu waa inay noqoto labada dhinacba inay is ixtiraamaan sidoo kale waxyaalaha sacaadada ama liibaanta qoyska keena waxaa ka mid a qofba qofka kale qaraabadiisa aabbihiis iyo hooyadii gabadhan hooyay leedahay aabbay leedahay adeer bay leedahay walaal bay leedahay sidoo kale zawjka ama ninku aabbuu leeyahay walaal buu leeyahay gabadha waa inay ixtiraamto ninkana waa inuu ixtiraamo li'anna waa waalidkaagii iyadana waa waalidkeedii haddaan labada dhinacba ixtiraamka uusan ka imaanin iyadana waxaa imaanaya qoyska inuu ku imaado burbur arrintaa iyadaana waa arrimaha loo baahan yahay oo sharcigeenna meel adag uu ka dhigay li'anna hooyada wiilka waa hooyada gabadha hooyada gabadhuna waa hooyada aabbaha sidaasay hooyada waxaa leeyahay zawjka saasay marka noqonaysaa in labada dhinacba ixtiraam uu ka yimaado allah tabaaraka wa tacaala ayaa weydiisanaynaa inuu naga dhigo dad wanaagsan oo diintiisa ku dhaqma maadaama xilli dambe tahay la yidhi arooska lagamana raago wakhtigana uu dib u dhacay waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan soo koobno oo waqti dheer insha allahu tacaala maadaama cishihii waqti dambe ay tahay allah tabaaraka wa tacaala aynu u ducayno usradan cusub ama qoyskan cusub ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caawa aynu fadhino maxaa la yidhahdaa xafladiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u barino inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyo ilaahu barakee baan leenahay usradan ilaahu durriyad saalixa sii ilaahu durriyad saalixa oo anfacda iyaga iyo muslimiinta iyo dhammaan ummadda muslimiinta ilaahu kala sii ilaahu ka dhig qoys isku waara oo isku barbaara ilaahu ka dhig usro iyo qoys muslimiinta anfaca iyagana is anfaca allahumma salli wa sallim calaa cabdika wa rasuulika muxamed وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين